waxa uu isu diyaariyey si uu u guto salaada duhur. Waxa uu sidii caadada ahayd buu usoo diyaar garoobay salaada inuu ka bixiyo jameecada masjidka u timid si ay u ogaan salaada duhur. Balse maalinkaasi waxay ahayd maalintii ugu dambeysay dunida. Waxaan ka hadlayaa waa Allaha u naxariistee Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Walaal u duceey sheekha inuu Alla jannada ka waraabiyo, sidoo kalena sheer garee si ay bulshada muslimka ah gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed ay ugu duceeyaan sheekha. Mahadsanid. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder. And fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. Sheekh Ismaaciil Sheekh waxa uu in muddo ahba ahaa mid salaada ka tujiya masjidka Abi Hurayra ee ku yaala suuqa Bakaaraha ee degmada Howlwadaag. Balse nasiib darro 16 bishan ayuu geeriyooday, iyadoo weliba geeridiisu ay ahayd mid argagax leh oo ama kaag iyo yaabo ku riday dadkii yaqiinay sheekha. Allaha u naxariistee Sheekh Ismaaciil ayaa isu diyaarinayay inuu guto waajibka salaada duhur, sidoo kalena uu dadka ka bixiyo salaada, maadaama uu sheekhu ahaa mid masjidka imaam ka ah oo salaadaha ka bixin jiray dadka jamaacada u soo aada masjidka. Balse sheekha wadnaha ayaa istaagay oo sidaasi ayuuna ku geeriyooday, iyadoo dadkii ogaa ay sheegeen in sheekhu uu hore caafimaad u qabay. Arrintan ayaa naxdin iyo filinwaaba ku noqotay dadkii u soo dareeray masjidka iyo sidoo kale dadkii uu sheekhu u faa'iideyn jiray barashada diinta Islaamka. Dhacdadan ah in uu geeriyoodo qof salaad ku jiro ama isu diyaarinaya ayaa ah mid dhowr jeer oo hore dunida ka dhacday, balse arrintan ayaa ah mid aan looga baran geyiga Soomaaliyeed. Salaadii duhur kadib, Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan oo in muddo ahba ahaa imaamka masjidka Abi Hurayra ayaa janaasadiisu lagu tukaday isla masjidka Abi Hurayra. Janaasada iyo aaska sheekha ayaa waxaa ka soo qayb galay dad fara badan oo sheekhu yaqiinay. Muddo badan ayuu imaam ka ahaa masjidkan, balse 16 bishan isaga ayaa lagu tukaday salaada janaasada isla masjidkii uu ku tujin jiray dadka. Sheekh Ismaaciil oo ahaa qof dhalinyaro ah ayaa dadka yaqaano waxa ay sheegeen inuu ahaa shakhsi afgaaban, cibaado badan, sidoo kalena ku xiran masjidka Abi Hurayra. Allaha u naxariistee Sheekh Ismaaciil intaas ayuu ku ekaa waqtigiisa, waxauna u hoyday gurigiisa saxda ah. Qof waliba waxa uu leeyahay ajal u qoran oo aan ilbiriqsi looga darin. Dhammaanteen Allah ayaan ka magagalnay geerida kadiska ah ee loo yaqaan mawtul faj'i. Ilaahay camalkeena wanaagsan iyo ajasheennaba ha iswaafajiyo. Walaal aan u duceyno Sheekh Ismaaciil Sheekh Xasan inuu Alla naxariistiisa janno uu geliyo, sidoo kalena sheer garee muuqaalka si bulshada muslimka ah ay ugu duceyso. Halkaas ayaan ku soo afmeeraynaa muuqaalkeena maanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.